inankiibaa afkala qaad ka soo haray dhiiranaanta gabadha ayuu la ashqaraaray isaga oo cabsiyey buuxisay si iyada aad u raba ayuu su'aal ku celiyey oo wuxuu ku yidhi oo heedhe sidee baan ku garanayaa marka uu naasa adag lisaayo waxay ugu jawaabtay fiidkii markay noqoto oo lo'dayadu ay reerka u soo hoyato ayaad soo fadhiisan meel u dhaxaysa golaha lo'da iyo aqallada adiga oo hubkaagu kugu dhan yahay dabadeedna marka uu walaalkay lisida saca u tafaxayto ayaan aniguna waxaan kuugu baaqi doonaa cod dheer oo aan kugu ogeysiinayo goortu inay tahay goortii habboonayd ee wiilwaal oo dagan aad makali lahayd kadibna aynu sidaa qoys ku noqon lahayn qorshaha halista ah inuu yeelo ayay si isdaba jooga ugu guubaabisay habeen iyo dhalaarba goortii ay is arkaanba way ugu celisay waxay u qurxisay dilka walaalkeed ilaa ay kolkii dambe yeelsiisay habeenkii lagu ballamay ayaa soo galayoo dhulka eebe mugdigiisii ku daboolay inankii oo u eg wax nafta ka samirsan si guubaabadii gabadhu ay maantirtay ayaa golihii wiilwaal u soo xadxaytay wuxuu ku raran yahay wixii hub uu heli karaayey waran gaashaan hooto seef iyo toorey saddex gees ah geed xagar ah oo aan ka fogeyn edagta weynaha ayuu ku soo gabaday wuxuu doonayaa waxa golaha ka dhici doona oo dhan inuu si wacan u maqlo in aan sharqan yarina dhaafin ayuu rabaa si aanu u seegin baaqa uu u dhogtaagayo ee xagga gabadha uu ka sugayo wuuse walwalayaa tallaabada ba'an ee uu koldhow ku dhaqaaqi doono ayuu dhab uga walaacsan yahay wuxuu og yahay inay tahay tallaabo isaga ka hor aan cidina ku riyoon kuna dhiiran waxaa ku soo dhacday mahmaah uu odayada ka maqli jiray oo ahayd awr wado iyo nimay naagi wadaa midna kaama weecdo maantase murtidaas dhug iyo dhagatoona uma laha waxaa xusuustiisa ku soo dhacday tii kale ee ahayd hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh iyaduna caawa hakin mayso suu meel uu ka noqdo ma joogee dhabanka ayuu dhulka ku hayaa durba waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq hor leh oo xagga reerka ka soo gaaraya xidigtii waxala xirta ayaa sii wislahoo cirka ka sii hoobanaysa wisinkii ishkinka la maali lahaa ayaa la joogaa waxaa u muuqda dab oogan oo lo'da iyo carruurta qaarkeed ay kulaalayaan ololka dabkaa ayaa kolkol wuxuu tusayaa dumar gacnaha ku wata agabkii lo'da lagu maali lahaa sida dabaro haruuba culan kuwa la deebiyey iyo caanaha habeenkaa la liso dhiilihii lagu dhigi lahaa weylihii iyo sicihii dhalay ee ay ku irmaanaayeen ayaa bilaabay inay isu coyaan markii la gaaray fiid walba xilligii la isu soo dayn jiray lo'da inteedii badnayd hadda waa la maalay wuxuu inanku u tooghayaa naftiisa goortii uu biimayn lahaa oo soo dhowaatay baaqii gabadha oo ilmilicsa kasta dhegihiisa ku soo dhici kara ayuu sugayaa wuxuu goostay xagarkii uu ku gabanayay inuu ka yaro baxo oo xagga reerka inta uga durko uu xerada lo'da fooda ku qabto sidaas markii uu yeelayna waxaa u suura gashay inuu maqlo hadal kasta oo dhex maraya wiilwaal oo kolba sac lisaayo iyo walaashii oo weylaha hadba mid u soo daynaysa cabbaar wuxuu halkiisaa ku nabnaadaba waxaa la soo gaaray markii la lisi lahaa sacii dhibta badnaa ee lo'da loogu dambaysiin jiray sacii naasa'ada ku magacownaa inankii ayaa wuxuu maqlay wiilwaal oo gabadhii ku leh heblaay dibiga naasa adag soo daah markaas bay si ay ugu baaqdo waxay cod dheer ku tiri dibiga naasa adag baa hadalkaa dambe ee walaashii ka soo yeeray ayaa wiilwaal dareen geliyey maxaa yeelay ma ahayn hadal uu uga bartay isla markiibana dabarkii iyo agabkii kale ee uu saca ku lisi lahaa ayuu gees isaga tuuray halhaleel ayuu dhulka uga haabhaabtay qalabkiisii dagaalka wuxuuna ku hubsaday labadiisa gacmood dabadeedna isaga oo aan garanayn halka looga iman doono ayaa waxaa afkiisa ka soo baxday su'aal waayadii dambe maahmaah noqotay oo ahayd naa maxaa dibiga naasa adag iyo weedha kulmiyey naftiisa iyo hareerihiisa ayuu indhaha aad ula raacay mase waxaa ku soo garan inankii oo bidixda iyo bidigtaba labadiisii waran ku sita seefi ay u jeeda qaadan tahay abley af badanina ay u galaysan tahay haddiiba wiilwaal wuu fakeray wuxuu hubsaday ninka soo maqiiqanay inuu isaga maagan yahay markaas buu degdeg u baneeyey halkii uu taagnaa oo dhanka bidixa u booday inankii oo xawligii oradkiisa yarayn waayey ayaa gadaal u dhaafay isagiina intuu sidii libaax dhaawacan uga daba booday ayuu hooto dhagaleeya ku halgaaday oo garabka bidix kaga joojiyey inankii oo nabarkii la alaladaya hootadiina ay ku taagan tahay ayaa dib u soo jeestay wuxuu maagay inuu is-axmo oo ninka dilay uu waran tuuriyo ah caloosha kala helo ha yeeshee waxay noqotay toog baaqatay wuxuu iska waayey xooggii uu waranka ku seelaalin lahaa ee uu wiilwaal ku gaarsiin lahaa dabadeedna kii oo xaraaruga oo naf xuni ay ku soo cirriq leedahay ayuu inta dul tegey ruux togay seeftiisii oo hilaacaysa ayuu kurka kaga jaray halkaas buu ku ahaaday su'aasha kolkan meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay wiilkii aragnaye gabadhii iyadu maxay talow ku dambaysay walaalkeed wiilwaalse maxay habeenkaa ka mudatay oo yaa yaqaan